wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal meel kasta nala socotaan waa radio kartoon saacaddan oo saddex barkii galabnimo aniga wariye raas idin socodsiinaya waxaan idinku hayaa barnaamijka maanta maxaa ku dhacay ciidamada Jubbaland waxaa ka si toos ah ugu jira taliyaha ciidamada Jubbaland ee aaga Mandheera waa Cabdirashiid Janan waxaa kaloo isaga wareysan doonaa insha Allah oo khadka isaguna diyaar ku ah Abwaan Khadar Gure oo ku sugan gobolka Sool naga warbixin doona taariikhii daraawishtii xilligii gumaystiga Ingiriiska la dagaalaysay waxaan kaloo warbixin idinku hayaa iyadana warbixin aan ka diyaarinay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Amiin Saxane Haalan oo loo yaqaano Abwaan Dhigane oo warbixin laba luqadood uu kaga hadlay ku soo faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen shalayto ilaa habeen hore deegaanka Beled Xaawo dad gobjoolayaal ayaa iyaguna noo sheegay inay meesha ka dhacday haanta Harubla oo ciidamada Jubbaland si sahlan loo soo aruuriyay oo madax ka tirisa inkasta aan arag hub waaweyn oo gaadiidka teknikada ah haddana waxaan arkaynay hub fudud oo tarabeela isaguna la soo aruuriyay waxaan u magaalada daawadayaal in ciidamadii halkaas soo weeraray kala bar oo bar la qabtay dhaawac fara badan uu jiro wax yarna ay baxsadeen Cabdirashiid Janan oo ku sugan hadda meesha ugu sugan isagu inoo caddayn doona ayaan wareysan doonaa laakiin waxa aan ku horanayaa warar aan ka leeyno deegaanka Beled Xaawo ayaa sheegaya dad gowjooyaal ayaa noo xaqiijiyay in ciidamadaas ay soo galeen habeennimadii magaalada oo aan ku sugnayn ciidanka dowladda Soomaaliya uu dibadda ka joogo waxa la sheegay in marka ugu horeysa ay abaareen meelaha irsaaqada ku dhowdahay sida Hormuud iyo meelaha ganacsiga inkastoo subaxnimadii dibadda looga saaray habeenkii uu khasaare ka dhacay magaalada dad shacaba soo gaaray oo aan u tacsiinayno iminka iyo haatana waxaan si toosa u gelayaa khadka Cabdirashiid Janan tani ma maqlaysaa waa ku maqlaa radio kartoon si fiican ku maqlaa wasiir Cabdirashiid Janan waxaan rabaa marka ugu horeysa ka wareysto sida ay wax u dhaceen habeen hore iyo xaaladdu sida ay ku bilaabatay waxay wax u dhaceen habeen hore ciidamadeena Jubbaland oo aagooda ku sugan iyo meelihii amniga ka sugaayeen waxaa soo weeraray ciidamada oo xamar laga keenay iyo ciidamo argagixiso ah oo iskaashanaya aa soo weerareen kabacdina ciidamada Jubbaland waa iska difaaceen kabacdina magaalada ayaa la isla galay magaaladiina waa ka saarnay haddee saasay wax u dhaceen haddii ay weydiisay marka idinku halkaa ku sugnaydeen markaa idin soo weerarayaan magaalada Beled Xaawo geeskeeda meel geeskeeda aan ku sugnayn marar badanna waa sheegay halkaasaan ku sugnayn annagu weerarkuna uu nagu qabsaday ma garat waa gartay mudane markaa hadda gudheeda saacaddan aan kula hadlaya halkeemaad ku sugan tihiin meesheenaa ku sugannahay xeradeenaa joognaa wasiir Cabdirashiid Janan xeradiina asalba marka horeba mar badan baa ka taagnaa in badan baa warbaahinta lagaga hadlay inkasta idinku sheegteen inaad ku sugan tihiin Beled Xaawo geeskeeda haddana wax caddayna oo muujinaya inaad meeshaas joogtaan waa la waayey markasta waxaan soo muuqda warbaahinta lagu arkaa ciidamada Soomaaliya oo Beled Xaawo jooga shalay unba baa noogu horreysay raadkiina ama aragtidiina idinkoo Beled Xaawo u soo dhawaaday shalay wixii meesha ka dhacay waa la wada arkayay marka maxaa noogu caddayn kartaa adigu inaad joogtid Beled Xaawo ama meel ka mid a Soomaaliya maya dee qofkii ujeeddo kale le iyada meesheeda waaye laakiin annaga waxaa waaye waxaan joognaa Soomaaliya Beled Xaawaan joognaa markii horena joognay haddana ciidamadaas baa nagu soo weerareen oo xamar laga keenay ujeeddo siyaasadeed laga leeyahay qofkii isagu dan kalena waa gaar laakiin annagu meeshaan joogno horena waa u sheegay haddana waa kuu sheegaa shalayna waa arkaysa inaan difaac kaga jirnay aan dhulkeena difaacayna dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaad dalkiina ku soo duusheen aad tihiin qaran dumis oo ay idin soo abaabshay idin soo dirtay dowladda Kenya adiga hadda waxaad noo sheegteen dalkiina aad difaacayseen sidee bay isku waafaqayaan labadaas hadal mudane wasiir Janan Soomaaliya dal federaal waaye ciidamadii Jubbalandna annaga ah ciidamada federaalka ana wax hadda sababo halka u yimaadeen ma jirto aan ka ahayn weerar iyo in waddanka la burburiyo marka waa fahmi kartaa dee in annagu aan dalkii difaacayno ama cadow gudaha aan ka difaacno ama mid dibadda aan ka difaacno kollayba un difaac waa ka difaac ma garat Cabdirashiid Janan hore waxaa lagu haystay dambiyo dagaal oo eedeymo culus oo mar dhexdaasa Muqdisho lagu xiray inkasta markii dambe aa ka baxsatay meeshii haddana shalay dhimashaa dhacday madaafiic baa ku dhacay guryo khasaare kala dhacay weli lama oga khasaaro intuu leegyahay laakiin waa soo bixi doontaa xisaab baa iman doonta dambiga inuu kuga sii laba jibaar ma malanaysaa dambiile waxaa ninkii intuu xamar ka yimi Beled Xaawo oo nabada soo weeraray oo ciidamada kumanaanka kunoo kamaandooska ah ku soo aruuriyay dambiilaha anagu manihi mudane wasiir Cabdirashiid Janan shalay waxaan arkaynay ciidamo badan oo beeca oo farfarisanaya oo madax ka tirisa oo la aruurinayo iyo hub fudud oo fara badan iyo qalab badan oo la idinka qabsaday inkastaan arkayn gaadiid dagaal oo waaweyn laakiin hubka fudud oo fara badan waa arkaynay muddana waxaa sheegay sanad ku dhow inaad tababar ku jirteen ciidankiina waxay arkaan macawisley aan wax tababara qabin oo duruuf ka muuqato oo IRCD baa gacmaha taagaya oo tirada ka batay oo aan qaab dagaal iyo farsamo midna lahayn meeshaas waxaa ka dhacay maxaabiistii ugu tirada badnayd intii dhawaanahan taarikhda lagu hayo
marka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iyo inta warbaahinta laga arkay marka laga tago maxaa noo sheegi kartaa oo khasaaraha idin gaaray dhagiina su-aashaas dee jawaab male waxaad u hadlaysaa sidii qoladii soo duushay baa hadda inaad la socotid unbaad hadalkaagu u dhacaya si dhexdhexaadnimo haddaad i weydiiso laakiin waa kaaga jawaabi karaa okay mudane wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland amiin saxane haaraan oo loo yaqaan abwaaniir hele oo shalay gaab hadlay waxa uu ku hadlay laba luqadood luqadda koobaad oo ahayd afdhagolaha wuxuu ku sheegay inuu ooyayo axmed madoobe oo ilmo ay ka socoto markii dambena waxa uu gudbay luqadda caadiga oo lays maqlayo oo waxa uu ku sheegay in ay guul tahay ciidamada jubbaland maadaama ay beled xaawo gudaha u galeen inkastoo marka dambe laga saaray laakiin ay guul ka sheegan karaan maadaama ay gaareen gudaha beled xaawo marka ma ku mutaysan karaa in dowladdiina laga saaro ama xarig ama cawaaqib kale ma kala kulmi karaa luqadda dhagolaha oo uu ku muujiyey in xaaladdu axmed ay tahay oohin iyo ilmo warkaasaa sheegaysid aduu kugu kooban yahay sal iyo raad meel uu ku leeyahayna aan ma ogi meel abwaandhiir hele wasiir warfaafin lagaga magacaabayna ma ogi afdhagoolana haddee anu ma aqaan anugu cabdirashiid janan baa layidhaha beled xaawaan joogaa arrinta dagaalka waa iga waraysan kartaa laakiin waxyaalo kale oo suuqiya anuu waxba kama sheegi karo waa tahay daawadayaal dhegeystayaal iminkii haatan waxaan u gudbi doonaa oo khadka telefoonka si toosa ugu jira abwaan khadar jamac gure oo ku sugan gobolka sool oo aan ka waraysan doono sida uu arko ciidamada la magac baxay daraawiishta ee jubbaland oo shalay jab xoog leh kala kulmay dagaal ay ku soo qadeen subaxnimadii hore xuduud beelaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan deegaanka beled xaawo soo dhawow abwaan khadar jamac gure ka xunay daawadayaal dhegeystayaal khadka ayaa ka xun abwaan khadar gure iminkii haatan waxaan ku celinayaa wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan soo dhawow cabdirashiid janan mar kale ما مقشة على الشيطان. أكو مغلا. مدري waxaan ku weydiinayaa mar hore xuduudda Kenya waxa soo duubteen video uu ka muuqday adiga la fahantaada oo hanjabaya oo dhahaya hubkan aan wadano baakorada maahan oo waxa weeye hub qarxaya oo dhacaya wax baabiinaya oo bere ah oo khatar ah haddana shalay waa arkaynay hubkii meesha ku dambeeyay waa u jeednay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cusmaan Abuukar Dubad oo Muqdisho ka hadlayna waxa uu sheegay in hubkaas uu ahaa hub Kenya ay idin soo siisay oo la doonayo waddanka Soomaaliya lagu baabi'iyo Soomaalida la iska hor keeno oo isku dhimato isku baabaado hubkaas uu ahaa hub aan dhacayn oo shaqaynayn oo caaga oo bele ah marka ma wagtay inay idinku caddaatay baakoradihii macantahay baas leedahay ka xunahay daawadayaal dhegeystayaal waa ka go'ay wasiirka khadka waa jira marinaya waa jiray waxaan marinaya ka xanaaqay su-aashaas ka raali gelinayna su-aalaha intaan barnaamijka ku kulmi doono waa anigoo raasa iyo raadiyo kartuun waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo